السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودان إذن كيمبا من البواد جوكتان كسدوا هذا برنامج كفنكي سوغانتا وتضاد والبعض كداوتان تلفزيون كقرية الصومالية إسلام كانت كدقيستان إذاعة راديو مقدشو عدك جمهورية فدرالك الصومالية. برنامج كتضاد والبعض وحان كسو قادنا ما نكعزمنا فنانين أبوانو قبيا سوغايها. طبعا تضاد كان وحا مرتي نوقع برنامج nin gabya ah isla markaana kamid ah dadka soo qaxay jooga maanta wadanka Koonfur Afrika maadaama barnaamijka toddobaadkan uu kaga imaanayo studio TV gu kuleeyahay magaalada Cape Town. barnaamijka waxa marti noogu ah Cabdullaahi Nuur Gacal wadani waa gabya Soomaaliyeed oo in badan ku soo dhex jiray halkaas Soomaalida. barnaamijka waxa idin tabinaya anigoo ah Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe dhanka kaamirooyinka waa Maxamed Axmed Siyaad Geelle يولي عبد الكريم حيري عبد الله هبي ان وغورن كسدو برامج كا فانكي سوغانتي تي في قناه الصوماليه مدن يابان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر عبد الله ودوهي ان runtii aad baan u mahadsantahay sida qiimaha badan ee soo dhaweysay. waxaan horta marka hore salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin kuwa dalka ku nool iyo kuwa dibadda ku nool iyo dhammaan fanaaniinta abwaanada ee dalka iyo dibadda ku nool ee Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha SNTV ee ku nool adduunka meel kasta ee idaacadda ka shaqeyso. runtii waxaana maanta nasiib u yeeshay in aan kasoo qayb galo barnaamijkan ay maanta igu martigelisay SNTV. وطبعا كلام بعدين أنا نقول سيدو كله مدن أبوان. طبعا برامج كوافن كي سوغانتا أديكم حتى قبيا Soomaaliya ومدبر فن كسول حجري. طبعا سيدو عرفتمات برامج كان فن كي سوغانتا نصيب عنو يراني انتظارات كان أديك عن قوسو قابل الإسلام كان برشلونة Soomaaliya الدنيا الدعوة ده كنوا شنت قابل الدنيا يداوم يعني. والله الحمد لله رب العالمين آدي أبان وفرح سنة إن أمانت ضدك Soomaaliya وصوبر لنا قبل آد وخير بدن أو قف كستون اللي ستأخذوا كم مصلحات قاعدة يساعدين نقطة إن ضدك قرباء كلهم طبعا لبعض الفرق بدن كويسته ضدك كلهم إلا مالك إلا شيء إلا هذا لبعض كويسته إن أي معناها آد أن أي وحيرة أي وحوي وساق هذا دونا فرنتي فرصة دازن أنا وحيتها فرصة خيالية ومعناها إن سيرة أدوية أقدر أجر وهلا وتحب ما صنع طبعا وفيلي يعني كفى إذا صدوران وجود هندا ودياشة SNTV اللي جستياشة الراديو مقدشو عدك جمهورية فدرالك الصومالية. إن أبواني وغورين برانشكا إن طبعا فانكي سوغانتا إن أبما تمثل كتاهي الواحد وربحين كوا نجاسيسا تاريخ نولد كذي هل كات كل لتي يولي بقى إن نولش هذيك الحاجة تاريخ هذا الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت الحمد لله رب العالمين. أنا مركي وأروح كل شيء تقبل على قبل كشاف على هذا sanadkii 1937 meeshaas ayaa ku noolaay quraanka ku soo bartay. waxaan soo galay magaalada Muqdisho 1983 anoo 12 jir ah ilaa iyo haddana waxaa ku noolaa magaalada Muqdisho hadii laga reebo 15 sano aan ku noolaa soo qabri. runtii mar kasta waxaa isweydiiyaa goormaa ku noqon doontaa wadankii goormaa tigi doontaa magaalooyinka aad ku qurxad badnaa ku dhalatay sida degmada Cadale magaalada Cabduul magaalada Burdheer degmada Raaycole oo dhamaankood ka wada tirsan ee gobolka Shabeellada Dhexe. runtii waa wax oo aad iyo aad u wanaagsan qofku haddii ay meeshay ku dhalatay iyadoo wax garad tagto maadaama aan ilmaha ka soo tagay dhowr marna aan wadanka ku laabtay laakiin aan Muqdisho weli ka tagin oo aan goboladaas tagin aad iyo aad ayaan jeclaa horta inaan u tago macnaha inay sidii magaalooyinka degmooyinka goboladii iyo oo weliba dad aan macnaha aad iyo qaraabana ay weli ku wada nool yihiin oo markasta oo xiriir naga dhaxay aad iyo aad baan u jeclaa inaan dib u laabto. وأنت والله صنطين طبعا لما أنت بقول لابد أن أدور ربي أود لي إنه سامحه وحنا شيء تبل قوية إن أترسو أنت بدن إن مدة بدن ما فنكسو نحجز تسلم في لي إن قرمس وبلون. runtii gabayga waxaan bilaabay aniga oo aad iyo aad u jeclaysta maadaama ciyaaraha hidaaya dhaqanka aan jeclaay aabahay iyo walaalayeen ay yaraantooda soo wada ciyaari jireen. waxaan bilaabay 1986 ama 15 jir waxaana ka bilaabay ciyaaraha hidaaya dhaqanka October-ta loo qabtay bistaanka dhuxusha. waxaana markasta iga soo horbaxa oo aan xusiistaa maalintaas ay ahayd 9 saac oo galabnimo
gabayga aan ka sameeyey idoo ugu yaraan boqolaal ay daawanaya anigoo aada u daayar haddana ay qof walba ay ugu dhiirigelisay iyo abwaan kasto inay yihiin wax aada iyo aada murood u wanaagsan yihiin oo macnaha inay oo la rumaysan wata sanadkii waa sanadkaas wuxuu ahay 1968 xilli waa tahay gabaygaas aad xilligaad tirisay ma xasuustaa aad iyo aad ayaan xusuustaa gabaygaas wuxuu ahay sii waa qoreen soojo gabar shacab aweys waaye salallaahi dikri salaamoyna nuur alla waaye anigoo 9 sano jira subca boobaayo subxaan iyo alkaafnaan aqaasarata laysiiyey aasuura leelee qabtoo subca waa diiday siman aan qira su-aal waa dirtaa sidii la sheegaayo si dirtana ma moogina allowna samawaati 3 waxaatee siinka ku taala 3 haddii laga waayo waxaan kasoo soco waaye sabar allah reer ka siiyo sayraha geel sanadiisa 9 sanaa la yidhaah siyeed haddii la saaro saamarka uu sugi waayo waxaan kasoo soco waaye sabar allah reer ka siiyo iimaanka saadaq ahaa sumalidaad sanadiisa 3 sanaa la yidhaah sulka haddii laga gooyo dabka haddii lagu shiilo suuna haddii laga waayo waxaan kasoo soco waaye sabar allah reer ka siiyo iimaanka saadaq ahaa sawjada naag sanadeeda 18 la yidhaah socdaal hadduu u yimaado salli haddii laga waayo ii salaanta wanaagsan waxaan kasoo soco waaye sabar allah reer ka siiyo iimaanka saadaq ahaa runtii dadweyne marka maalintaas ciyaarta deganaa isla galabtii isla habeenkii dada xaafadda ugu imaaday waayo qofku markuu qof aada u daayar ou yahay haddana waxa ay wax asaga ou soo aliftay waxba qof kastaba aada xusay waayo boqolaalo qof ayaana u suurtagelin in ay wax soo alifaan ay samaystaan waa tahay dabcan xilliga gabaygaas aad tirinayso aad baad u daayara sida inoo sheegtay gabayguna dabcan waa murti aada u fara badanaa ku jirta maxaa macnaha oo micnaha oo markaa sal ku hay gabaygaas sideesu ku celisay waxaan ku celiyay maadaama ciyaaro oo laga ciyaaro degmada cabale iyo weliba degmooyinka aada ku agdhawo shabeellada dhexe iyo macnaha ilaa galguduud ciyaaro ay yihiin hidaaya dhaqanka haddana dadka wada ciyaaro ay yihiin macnaha dad aada ciyaartaas ku wada abtirsan waayo qofku haddii ay ku dhalantay degmada cabale qofka degan macnaha shabeellada hoose hadday isku ciyaar yihiin dad isagaas waa iska jeclay waayo hidaaya dhaqanka wax aada aada u qaymi badan waay haddana runtii macnaha ku jira gabaygaas ayaa wuxuu yahay nafka geelka ah markii oo la dhaansado waa wax oo macnaha reer miig ay samaystaan haddii ou wixii la saaro qaadi waayo nafkaas waxaan jirin wa nafka oo macnaha ariga markii oo inta marti ku timaado aada maanta ku soorayso haddii oo macnaha dhadhan dhaldiid isna waxaa jira wa markaan usoo laabtay dhinac maadaama fanka iyo sugaanta aysa kamid ahayn in macnaha dumarka soomaaliyeed wax laga sheegay haddana wax sheegitaan maahane waa wax samayn gabadha 18 jirka oo qaangaarka ah markii ninkii jacayl la wadaaga u yimaado haddii martiqaad iyo soo dhaweyn oo ku waayo runtii gabadhaas waxaa waaye waxay noqonaysaa gabadh macnaha mas-uuliyadda oo dumarka aan qaadi karin marka waxaa meesha ku tusiyey maadaama gabdho fara badan ay ciyaarayaan meesha oo weeraan 30-40 gabdhood ay ciyaarta ay ciyaarayaan gabadho sugu hayaan kuwaan hadday ka baxaan ku kala soo gelayaan oo meel kasta ciyaaraha lagu ciyaaro gobolada waqooyi sidii puntland iyo gees laga ciyaaro waayo mistaanka dhuxusha waa taqaanaa octobarta 3 maalin oo aada iyo aada bis u tahay marka runtii waad dareemi kartaa gabar kasta waxay ogaa kartaa haddii marti u timaaday ay soo dhaway diiday sidii gabayga uu sheegaya in hadhow ay noqonayso qof aana xataa qof imaanay marka runtii waa wax halkaas aan ka dhex galay waxaad sheegtay dhinacan gabadhoo kale xilligaas waxaa jira dhaqan iyo weliba process dheera hadda ma isleedahay waxaa jira xoogaa difference arrintaas u dhexeeya والله واحد difference جرواية مركز أن حق معناه هرمرك نويرة لكن هذا ما دام آلات عصري يصاب هذا أو معناه أن قفك مركز تلفون لما أغاني قد يوصل هذا الشيء حريف وحوها حافظات دجنا وإمام حتى قفك دي أمانت فرصة أمره تلفون هو عطلية سلامي الدوس مركز الله يبين وجر مركز هذا حوينا كبد دلواية هذا معناه أن قفك دي حتى دي بدك نوشة إذا ما كنت يقولوا كل جلتة لما تسبت حريم كي نوص على ما هو بس أركيزين ومعنا كامل بس أركيزين قد كاس أركيزين دقيقة كده. وتهاي إن قفك مركو قوي بالله ويو أما ماركتا نعرفن وكبيرة يوحجر عقبات فربضا ولكن مصمت تامس إن هوي ما بيننا عبد الشذو كلا ولنو ليه إن نعوح عرنتو كلا أو ماركتا إن نعوالتو كلا هوي ما بين إن مجران عقبات الله كلن تيمرك بالله بيسفنك. كنت أدوية قفك والدك وحوج عليها عمرك مركي أو صبر بارو إنه وحبر الشديس أو دبكعه إنه دو أو معناه قانقار نقض أو الشقديس قبته أو كأذكار لكن قفك مركي أي عياران يفكي سوغان دقت وحاركي سوالين تجمعنا إنه الكوي توسع عقل من مستاقل العش عيارو إلا ما ندد دربال جمعة 6 ساعة انت صولن عياركم مغانا هبيك أنا الهردي كان هذا كلا تدماني وحد أنا مغالب مقدشة على دقمة يخشي أنا دقمة يخشي هبيك الثلاثة إلا ما كبر عيار المصمم يجري هداية لما يكون نوع والبر
oo ciyaaraha macnaha ina shabeellada dhex laga ciyaare haddana waalidka dhowr marba macnaha mar laga dhunto iyo 2 sano markaa saas ku wada kadib waalidka saasa kaa dhaafaa waayo waalidka waxa cunugiisa jecel yahay asagana waa la jecel yahay haddii waxun aysa ahayn haddana bulshadana waxaan u kasbaday maadaama waxa aan sameynaya iyo wax ammaan iyo dhiirigelin ay tahay wax oo macnaha inay wadada xun looga leexanaa wadada fiican lagu raaca hadii bulshada aad aad u raaca waayo bulshada waxay necab yihiin ninka abwaanka ay sameynaya wax isku diraal qabiil ah wax isku diraal shakhsi ah qofka saas camal dadweynaha ciyaartooyda weynaya laakiin wixii ammaan u badan aad iyo aad dadweynaha macnaha u taageeraan waa tahay maxaa kugu dhiliya xilligaas inaad gabiyaa noqoto ama gabiya aad samayso ma waxaa jiray sabab fara badan oo maaragta dhinacaas aad ugu biirtay oo dhinacyada kale aan uga doorbiday ma waxaa jira maaragta arrimo adig kuu qaas ah ma dhinacyo kale wax ka jireen maxaad waxaas leedahay runtii soomaalidu waxay tirahdaan in abkiis waa isirkiis wixii oo waalidka ciyaari jiray ilmahana sida badan qayb kamida baa ka leexdaan horta way ciyaarayaan tay ugu dhalisaa waxay tahay haddana markii oo la yihahdo xagga dhaliirnimada qofka ciyaaraha saas camal samayso hidaaya dhaqanka ama nooca noqoto orta wiilasha waxa waaye gabdhaha aada iyo aad way khaymo geliyaan waalidkana waxaa u helay macnaha ruux waxuu isaga soo ciyaari jira wiilkiisa hadduu ciyaaro oo waxuu ka filana macnaha waxay u kalifaa waxay tahay in macnaha aan noqdo qof oo bulshada markaas la degan ama diriska la ka dhex muuqato oo la dareemi karo inay tahay qofkaas qof wax soo alifi karto oo wax kastoo macnaha la sameeyo wax barbar socda samayn karto waa tahay gabay maaragta oo is leedahay qurbaha marka la yimid oo kale muddo fara badan baa dalka ugu dambeysay dhibaatooyin fara badan qurbaha lagala kulmay ma jiraan wax gabay oo qurbaha ka samaysay waa runtii cabdallow horta adduunyada way iska dhib badanta horta aniga maba isdhiinba weliga ayaa qurba joogaysaa oo qurba tegay laakiin markii dagaalada sukeeya ay soomaaliya aada iyo aada uga dhacaan ayay sababtay inaa imaado qurbaha haddana 2000kii markaa imiday South Africa oo ah qurbii ugu horeeya wadanka aan degaan oo ku noqdo waxaa ogaaday inay soomaalida dhibaato fara badan midka oo yurubta reer galbeedka kuwa degan soomaalida yurubta degan ama maraykanka kuwa sacuudiga u tahriibayo kuwa libiya u tahriibayo kuwa afrikada ku nool inuu dilkooda iyo dhibaatadooda aada u fara badan tahay wadankiina macnaha inay nabadgelyo lagu noqda aysan jirin waxaa ka sameeyay gabay la yihahdo qurbadiid waa tahay nagu noqon kartaa marka xogaa dabcan kaas gabayga qurbadiid waxaa sameeyey habeen 3 saaco habeennimo aniga wiil saaxiibkay anagoo ganacsi dukaan wada joogno dukaanka habeenkii ay suurtageli weyso inaan jiifano waayo tuuga ay habeenkii markaa jiifa tagnaba ay irida soo jibinayso waxaan ku heshiinay inaan jiifan ee habeenkaas aan soo jibin waxaa samaysanay kafay tarmuusa ku shubanay tv aan shidanay maba jiifanayna waayo tuugadu markay aragto tv-ga shidan iyo nalka shidan wax soo garaacaya malaha meesha ama isla markii warqadiqaalna qaatay waxaa uu talagalay inaan sameeyo gabayga la yihahdo qurbadiid oo ka sheekeynayo qurbaha manaata riibtan inaad badda ku dhimanayso haddii aad baabu raacdana macnaha wadankaa tagta oo dhibaato fara badan ama dhinaca dawada ama dhinaca tuugada oo macnaha bartilmaamay lagaa dhiganayo markii gabaygaas oo qurbadiid waxaa ku bilowda silatan qurbahan aan joogno qiimo dhacana haysto qaxa iyo dhibaatada qoor iyo xero la-aantaan qaadir nooma keenin qoray iyo qabiil baa quudkeena laga dhig qaabkii islaamka iyo qorshahayni diimeed waa la iska soo qabo qoortaa la xiirtaa qabqablayaasha dagaalka iyo kuwa kaloo isqarxaaya shacabka qoyskama reebin qaab ay ka dhigeen inuu qabri dad sugaayo qiyaamana ay ka dambaysa qalbigakooda ku mayaan doolarkooday qabsadaan quraacdooda u diyaar meeqaa qabiil ka tahriibtay adduunka qaarad ka qaarad waa soomaali qurmoon qorta looga gooy meeqaa qabiil ka tahriibtay badweyntaa ku qaluudo qabri aanan la geynay malaygaa iska quutay qoyska ay ka dhashay qabiilkooda ogeyn meeqaa qabiil ka tahriibtay adduunka qaarad ka qaarad qaxoyti waa uu noole quud gaar u keentay qaaraa lasoo tuug u nool gabayga sidaas ayuu u dhacay runtii anigoo weliba xataa inaan sii wada jeclaa haddana runtii wuxuu haddaan ugu talagelin inaa markaas oo fursad uga faa'iidaysato gabayga hadda intaas unbaa ka xusuystaa laakiin mid aad gabi aada u dheer u ah waa tahay waxaad noo sheegtay gabaygaas markaad South Africa timid ilaa cudisay sanadku ahay maxaa xasuustaa sanadkaa wuxuu ahaa 2007kii waxay la dabcan dhibaatooyin fara badan ay ka jireen dalkan koonfur Africa waa tahay qofka marka uu gabiyaa rabo inuu noqdo ama uu rabo inuu gabay uu sameeyo ama abwaan uu noqdo ama hal abuurba ma waxaa jira qaacidooyin uu maro iyo ruul iyo sharciyo oo looga baahan yahay mise qofka inta is yimaado ayuu wax curin karaa runtii abwaan waliba si unba oo macnaha wax u sameeyaa laakiin
sida ugu fudud oo wax lagu curi karaa waxay tahay horta waxa aad samaynayso inaa un xaraf oo kamida todobada ilaa dhowrka iyo labaatanka xarafo af soomaaliya xaraf kamida inaad ka bilowdo kuna dhamaysid haddii adigoo markaa ba-da kuwada inta ka leexato ma-doo kala tegayso wuxuu noqonayaa wax qalab baa kaa soo gelaayo laakiin ilaa hal saac 2 saac haddaad rabto inaad samayso wuxuu ku qurxanayaa inaad ka dhowrto waxaa loo yaqaana deelqaafka ee markaa manuuqa ahay iyo manuuqa ahay iyo manuuqa ahay meeshiisa aa ku wado oona noqdo mid aan ruux bini-aadana duraynin oo noqdo mid oo dadweynaha soomaaliyeed waxu taraayo oo qof kastoo maqasho markay dhegaysato inta hoos u jeesato un wax kamida ay kasoo qaadato haddii qurba ku nooshaana qurbaa inuu dhib leeyo waddanka ku laabato ay kasoo qaadato haddii ay tahay qof oo macnaha waddanka soomaaliya ku nool ee markaas u diyaara inay tahriibtana haddii oo macnaha baddaas iyo berigaas dhibaato ka jirto ee kuwa kaa horreeyana sida hadda abwaanka meesha gabiga uu sheegay oo kale waddanka haddaa wadda shee tagta saasaa lagu dilaa saasaa lagu dhacaa oo kuwa jiraan hadda soo noqdo waayo inay macnaha ay kasoo baxda meeshaas inay waddankooda sii joogaan ay wax ka bedelaan dhibaatadii amaan darada ka jirta meeshaas iyo macnaha dhaqaalaanta ka jirta ay ku xisaabtamaan si ay wax u bedel lahayn waa tahay gabayda marka sameynayso kale ilaa meeqa bi camal ay kugu qaataa inaad gabay samayso ama aada tiriso kadibna maaragta aada ku luqayso horta cabdullaahi markaa runta kuu sheegay gabiga ruux kastaba inta uu talagalay ku qaadan karaa waayo ninkii markii uu yahay nin shaqaale ah ee shaqadiisa ku xisaabtamo intuu gabiga siyaaba iska yar waayo waxaa laga yaabaa inuu bishiba una fursad u helin 2 maalin iyo 3 maalin ka badan laakiin waxaa 1 saac wax lagu samayn karo laakiin xifdintiisa iyo macnaha qaladka bixintiisa iyo wax lagu daraayo amba laga dhimaayo jiro markaa qorto kadib waxaa lagaa rabaa in haddana wixii qalado markaas oo adoo boobsiinaysa ka bixiso ee uu noqdo wax oo macnaha inay aada iyo aad oo bulshada ay ugu harayso waxna u taraayo waayo waxaana dadweynaha soomaaliya waxu taraya abwaanka inuu sameeyo ma wanaagso waa tahay gabayga xigo aad noo soo qaban lahayd ama daawadayaasha maaragta aad usoo bandhigi lahayd oo kale gabay noocuu ahaan lahaa runtii gabiga magaciisa la yiraahdo shacabkan sidaan soo marayay maalin idiin sheego gabigaas mar oo shacabka aan sidaan soo maray maalin sheego oo macnaha shacabka uu macnaha nasiibka badan markii hadda ag soo qaato hadda ka hor laba soomaaliya xilligii oo dowladda cali mahdi iyo maxkamadii oo sheekh cagaar mar khilaafaad oo ka yimiday macnaha guddiga wadahadalka ay sameeyeen ayaa macnaha dad oo abwaano iyo odayaala ugu martiqaada meesha anoo xilligaa weli aada yaraa haddana isla maalintii waxaan ka sameeyey gabi oo macnaha dadka maha jooga xataa aada iyo aada u raaligeliya waayo ruux kastoo islaama waxa u wanaagsan waxa uu sameeyaha inay noqdaan wax oo diinta islaamka usoo marka kaas unbaa jeclaysta hadda inaan macnaha soo bandhigo waa tahay waxaa la yihahdaa shacabkan sidaan soo maray maalintii sheego sheentarada shir baa jiro layiri shantana loo sheeg shareecada islaamka markaa shaarka laga taabto shacabka oo fiyaabo maskaxda weli shaqaynayso shareecada islaam diidayaa shaahid laguma shaydaan waa badanya naga shakaal maanta shiin waa qur-aan dhigana saa lagu shahaadaa 5 tiir islaam ruux ka taga meel laguma sheegin 5 simadaa shaydaan kuwada wada shirkoobeen shakhsiyaadka weli raba inay shil helaan shacabkiioo baan sharci gaala nala doono shar qur-aankaa leh shukri badan ilaahbaa iskala sheekay iguma runtii dadkii oo oday dhaqameedyada amba culamaa diinka meesha yimiday waayo ruuxa marka oo musliya waxaa la yidhi shiin waa qur-aan dhigana saa lagu shahaadaa 5 tiir islaam ruux ka taga meel laguma sheegin 5 simadaa shaydaan kuwada wada shirkoobeen yacni qof oo diinta islaamka iyo ku-dhaqankeeda ka tegay adduunya aqri meel uu ku sheegaya male haddii dowlad ay tahay haddii ay community tahay waxaa wanaagsan shareecada islaamka wax waafaqsan dadkaas inay sameeyaan oo adduunya aqri ajog weeraan dadkii miyi oo shirka maalin isu yimiday oo shirka intuu soo furmay koor gabigaas maqleen isla marka waxay ku heshiiyeen dowladda aan samaynayna ha noqoto mid oo kitaabka ugu dhaqan waxaa kasoo baxa meeshaas in oo kitaabka lagu wada dhaqan waa tahay dadku marka maaragta xilligii hore kalbarismaadkii gabayada sugaanta iyo waxyaabaha lamidka waxay ahaayeen lafdhabarta bulshada waxay isugu sheegto marka bulsho wax loo sheegayo kale ama fariin raba loo diro kale waxbaa la isugu sheegi jiro kale faaciido noocee markaas xilligaas bulshada u lahaa gabayada xilliga maaragta bilaabayso kale runtii aniga markii oo cid waliba dhaqan bay leedahay laakiin runtii markii aniga aan ka hadla sida magaalada muqdisho kale oo macnaha caasimada dalka soomaaliya ah waxa oo macnaha wax kastoo jira wax ka bedeli karo ee dad isdagaalo xataa kala jooji karo waxaa kamid ah abwaanada waxa ay alifayaan iyo waxa ay sameynayaan waayo dadna waxay u adeegsadaan in oo sidoo kale la isugu diro dad amba laba dowladood amba laba qabiil laakiin waxa oo dab shida lagu dami karo waxaa kamid ah
waxyaabaha ay adeegsadaan sidii gabiyada abwaanada ay samaynayaan sidii fanaaniinta heesaha abwaanada u dhiibeen oo aad iyo aad isugu keeni kara wax oo haddii ugu talagala dadweynaha oo ku nool adduunka oo soomaaliyeed ay isugu imaan karaan runtii waana wax ugu fudud oo hadda maanta daan soomaaliya isugu imaan karaan haddii ugu talagalaan abwaanada adduunka ku nool in ay soomaaliya mid noqoto abwaan kastaba dooga shaqeeya waxaa la isugu imaanayaa sidii oo xilligii soomaaliya ay ahaan jirto bilismaadka waata abwaanadoo kale weli arrinkaas ma iska arkeen weli kulma ka qaateen walaa ugu yaraan xitaa xilli maadaama aniga oo abwaanin kusoo biiray xilligii burburka soomaaliya waa ka dambeeyey laakiin xilligii oo macnaha inay 90-ga kadib mar oo abwaano ay ku kulmeen xaafadda oo deganaa ninkii abwaanka oo la yihahdo mustafa shicil dad fara badan ayaa waxay isku dayeen inay ka sameeyaan isu imaadka soomaaliya inay nabad ka dhalato inay sameeyaan laakiin runta way suurtageli diida waxaana ku daliila nin abwaan oo la dhihi jiray xasan dheere oo ku nool degmada raagaceelle gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa kamid aha gabi uu sameeyey markii oo dad wadanka ay ka gaxaan waxna ay ku nool yihiin wadankii oo burbursan ee 4 saac madaafka ugu socota ay yireen aniga waxaa ku dhimanaynaa wadankayna waayo meel kaloo ka aadama lahan isagoo cabiraayo yacni dadka socdaan inay joogsadaan oo tariibka ah dadka wadanku nool ay ka sameeyaan isbedel ayaa gabigiisa waxaa kamid ahaa soomaalida dubay joogta iyo dunida meeloon iyo kuwii dalka hooy weli daacadugu nool ee dariishad laga guuriy iyo daarad jaba seexdo danta weysla leenahay runtana daafacba ee dagaalka joojiyay dadka diinta ku ogaansha yacni in dagaalka inta la joojiyay dadka diinta islaamka lagu dhaqo qof islaam hoodhaysa diinta islaamka dhaqmayna ma jirto haddana waxaa ugu wanaagsan inta la suunaa lagu dhaqo marka abwaankaas waxaa ka dareemi kartaa ninka dibadda ku nool iyo ninka oo ku nool gudaha waxaa ka wada dhexeeya soomaaliya inay nabad noqoto dalkay dadkay diinta ka dhacayso marka abwaanada waxaa waaye wax ugu fududoo macnaha oo nabadda ka dhalin karo haddii ilaahi subxaana watacala raalli ka noqdo waxa ay soo alifahan insha allah tacaala waa rajalina ma jiraan weli gabay adiga maaragta si gaar ah ku taabanayo ama dareen adiga kaa yimid oo kale aad u samaysay saameyn gaaran kugu leh runtii horta gabayada aniga aan qaado sida badan waxa aniga aan sameeyo waayo oo midka hadda aan sameynayo oo kuu sheegayo sida qurbadiidka ah midkan kaleetoodo macnaha hadda isla qaadayo xilliga dowladda cali mahdi aan sameeyey iyo kuwo kaleetoodo fara badan waa wax aniga aan sameeyo oo ugu talagalo in ay macnaha soomaalida meel kasta joogto macnaha amba aragta amba maqasho inay inta akristaan ay wax macnaha inay markaas ay ka sameeyaan waxay ugu tala jiraan wax ka bedelo marka waxaa kamida gabiga macnaha aniga oo aan sameeyo xilli aan markaas aada u da-yara taada waa qur-aan dhigata waa ilaahay taabad waa tuura lirabilita calaadaada taageeraday laba gaclood tala ku gooyaan tiskaa waxaa la gartaa hadday madaxda tiiraysa hadday midigta kale taagan tahay talama gooysaan gabar toosan ee tiira ee tala akhyaarada taariikh haddoogu timaado ay toosayayso warkaada tala inay ka xumeyn aata anigayga ku taal tagninkeedii joogay hawada taar wareejaha ninkii tallaabo la qaada ambase ou taxamaysto todobadii astaamood inay ku taalaata dhigowga sheegaan yacni si shareecada islaamka ma qabto ruuxa gabadha markii ay noqoto gabar oo niqab guriha u joogto amba macnaha inay gurigiisa inta ka tagto guriga haddaad ha joogto haddiiba naag la qabay taa shareecada islaamka waxaa ka xaran naagtaas inuu nin kastaba ogyahay inuu naagna qabaya oo in la salaamo maani shukaansigeeda oo xaarayn waxuu tusinaa markaas markii aan leeyahay tagninkeeda joogay hawada taar wareejaha yani gabadha markii ay ninka qaba ay ka tagto isdagaalaan laakiin ciddeeda maalin walba la sameynayo waxaa la yihahdo relationship sidii macnaha xariir oo xaaskiiba u baana gurigeeda u diyaara i imaado iyadana ay leedahay aniga ma raba ninkaas hadda goonaas dagaalo markay isku dhaceen oo kale marka dhalinyarada markaas gabadhaas diriska ah haddii gabigaas maqlaan waxay qaadanayaan inay maalin kastaba yihahdiin 7 naclaa kugu dhacaysa haddii aad nin shukaasatay ninkaada aaso joogitaanka guriga adoga aad joogta xataa waa dib waayo naga la qabaa tahay haddii aan ninkaada gurigeeda aaso maalin kadib waxaa laga yaabaa inay gurigeeda aastay ninkaada aaso wata gabaygaas macnaha ma wax dareen kaa yimid oo qof aada u samaysay miyaa jiray oo sidaas daraadeed aa u samaysay qofka kaa cusubaya runtii gabigaas waxaan u sameeyey wiil aan saaxiibka ahaynay oo macnaha inay guursada gabar ciyaaraha hidaaya dhaqanka oo ciyaarto xataa aniga aan la ciyaari jirna markii ay madax banaanka ahayd haddii la guursado ninkii oona ahayn nin ciyaar hidaa ciyaaro wax ka yaqaano ciyaaro meesha ciyaarta ciyaaro gabadhii bila kadib maalin walba waxaa arkaysaa saaxiibadii la ciyaari jirto gabdhay wiilana ciyaarta waa lagaa waayaa laleeyahay raggood isku mid maaha gabadha codaaday dib ugu laabatay iyadoo gurigii diiday ninkeeda ninkii waxuu u dhahaa saaxib gabadhaas maadaama markasta ciyaaraha tagta iskuna aragtiin ii sameey gabi oo macnaha inay markay ciyaarta timaado iyadoo maqlayso dhalinyarta la ciyaaro ay maqlayaan in ay
gabadhaas qof kastoo macnaha inay dhaliirta kamid ay soo maslaxdo si reerkeeda ku dhaqato inay la ciyaaraan ay diidaan waayo haddii la diiday in lala ciyaaro lenaga la qabo waa iska tagaa fankii sugaantana waxaa kamid a in oo naag oo nin qabo ciyaaraha hinta dhanka lala ciyaaro waa ka mamnuuc laakiin dhalinyarada waxaa jirto wax aana sharciyeysan oo dhalinyaro sideedaba ma dhamaystirno haddana markii oo macnaha in aysan ahayn dad abwaane ee waxawaaye aada iyo aad dad unbaa u talagaraynaya inay macnaha gabadhaas ay la sheekaystaan la ciyaaraan maalintii markii gabi aqaado waxaa dhacday wixii ka dambeeyey maalintaas gabadhaas gabar kasta iyo wiil kasta inay ku dhaheen guriga habartaa ka tagay guriga nikaada aaso mana kula ciyaareen mana noo imaan kartid cayaar hadaa timaadana oo ku ceeboobaysaa waayo nin kula ciyaara daaweysa adaas ka tagay wiil kadib inay nikeeda ku laabatay la dhaqanta haddana caruurtooda xataa ay qaangaar ku dheedaa saas unbaa la socda oo hadda qaangaarka ku dheeyihiinba oo dabcan halkaa ka talisay arrintooda gabayada markaa sameynayso dareen noocee ayaa ku samaysaa qaabkee ayaa jeceshaa inaad u samayso mar dhinac nabadoo kale waxaa jira dhinacyada jaceelka oo kale dhinacyo maaragtay arrimaha bulshada oo kale bulsho wax lagu fahansiinayo kale dhinacyo inta badan kuwa fudud ana u badanta inaad gabayada ka samayso horta runtii ruux waliba macnaha waxa uu jecel u sameeyaa laakiin ani marka aan kusoo biiro soomaaliya dagaala ka jira ilaa haddana way ka socdaan soomaaliya waxay tirahdaan nin hurdaayo hebel maadna dhihi hoo ku dhimaa yacni qofka markii nabad iyo barwaaqo ay haysato oo wadankeeda ay ku nooshaa inay 24 saac ay gabi jacayl samayso way jeceshahay ay saaxiibadeeda siiso qofkii kasoo codsatay u samayso xataa kasoo qabo haddii gabar kuu timaado ku tiraa saygeeda waa jeclaa inaad gabil u qaadan jeclaa mana samay karo inaad u samayso u dhiibto nikeeda ku ammaanto meeshaas kalsooni weynaa ka dhalayso wiilka sidoo kale laakiin aniga soomaaliya dagaalada ka socda ilaa hadda ka socda marka nin kastoo abwaan waxaa dhihi lahaa dhinaca jacaylka in inta la joojiyo dhinaca nabadda laga qayb qaato waayo haddii nabadda laga wada qayb qaato nabadaa soo baxayso wata ilaa jaceylka oo kale gabayaa ka samaysan ma jiraan aada iyo aad runtii hadda ka hor gabi aan sameeyaa jiro oo macnaha su-aal ilaa haddana uu afduleelaa wax iga soo jawaabo ilaa hadda weli ma arkin su-aal bulshada oo macnaha bulshada u bandhiga waxaa kamid ahay gabigaas markii aad jiro waxaan jeclahay maadaama uu ahay su-aal yacni qofka markii jacayl ku dhaco qofkay jecleedna wax la qaba diido talow maxaa u furan oo tale runtii weli wax jawaabo kama helin oo macnaha maxaa u furan oo yani taas ka sameeya weli jabcadnimo kamaan helin weli wax oo jawaabo kama helin bulshada in jawaab inaga soo sii doonaan markay ay daawadaan macnaha runtii horta ruux kasta adduunka wuxuu ugu jecel yahay waalidkiis caruurtiisa xaaskiisa walaalihiis ayagana markii amar yimaado inay dhintaan 24 saac kadib waxaa ku xisaabtamay qof kastaba inay dhimanayso oo u duceynaysaa in ahlu janna ka dhiwaana ka sabrin walow maalinta oo qabriga la gelinaha qofka walwal iyo walbaar oo qabana haddana wax ilaahay ou macnaha ou nagu waajibiyo waa wax loo baahanya marka oo waajib nagu waa qof kastaba maalmo kadib waalidkaaga u dhinta waa ilaabi laakiin qofkii aad jecleed ee ku hortaagan waxna kula qabanaynin waxay ila tahay qof ilaabi karta ma aha marka saas awgeed waxaa kamid ahay gabigaas xawaar ruuxa gala xilli baad ilowdaa ee ruuxa xooggale xibhan waliba nooshahay xabiibnimo u hayso xaasid aana moodayn hadduu xiliga kuu jaro maxaa xaalahoy oo dhih adigoon xishoo karin xarafnaana qori karin jacaylkana la xiig dara ruuxa xiliga kuu jaro maxaa xaal oo dhih marka ilaa iyo hadda wax oo jawaaba ka maayo laakiin jawaabdiisa haddii laisku dayo aada aada u gaabanta waayo qofka haddii uu ku rabo waxaa dhihi waa la garan laakiin hadduuna ku rabin jawaabteedu waana kala daa filaya bulshada iyo jawaab inaga soo sii doonaan markay daawadaan ama ay dhegeystaan laakiin gabaygaasi dareen noocee ku yimid gabaygaas ma noo sheegi kartaa waxuu ku yimid markii oo dhinaca macnaha xilligaa aan sameynayo waxaa soomaalida aada iyo aada ay u kacsaneed sidii websaydyada oo hoodmailka iyo nibaska oo 90% beentooda badan tahay haddana dadka oo yurub jiro sida badan gabdhaha reer galbeedka ah iyo wiilasha oo ayaga ay inta qaata 24 saac iska jiifo iyo dadkayna afrikada jooga oo macnaha hal saac fursad aan haynin oo aniga qof cayrnama siisee markii oo jacayl dhex maro halka saac oo aan fursad u helin waxaa u qabnaa run waxa noola sheegay wax walbana ma jiraan marka runtii waxaa ka sameeyey markii dhowr wiilo calaacalaysa xiriirka qaladka maaragta socialka ee dhexmara sida la isticmaalo kale facebooka nimbaska iyo waxyaaba msnka kale skybiga iyo waxyaaba noocaas camal inay ruux kastoo soomaaliyeed ee aana dacad wax ka hayn inuu jacayl ka joojiyo wixii salaam iyo walaaltinimo ka badan
in macnaa oo laga joojiyo waayo ruux oo damac oo ku jira hadda damac geliso bilina wax la qabay laga yaabay caaw gabadh inay 5 wiil oo kala nooc ama 10 ay shukaasay wiil kale sidoo kale waayo markaas leeyahay kale labadaba daacad ilaa 10 daqiiqo ergaa joogaamaay maxaa ku dhac may macnaa inay dabka iga dhacaan macnaa inay aw maanta eriyalka iga ma ateen ma jirto ilaa qof kale biis ku taaqo marka runtii ani waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed maadaama dad islaam ahay si uu dembigeenu u yaraado inay baanteen yaraato waa tahay abwaale dabcan abwaalada waxay qayb ku leeyihiin horumarinta afka Soomaaliga xilliga la qoray waa hadda maalin hore waxay ku beegneed 22 February maalinka afka hooyo waxaa jiray suugaano laga sameeyey dabcan qiimaha ay leedahay maalinkaas oo kale waxyaabo la mid ah maxaad ka xasuustaa maalinka ciidamada abwaan horta maadaama ay tahay maalin aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ugu macnaha inay ugu qaali ah haddana ay maalin hadda ugu dhow ay tahay waxaan ka sameeyey gab yar oo aad u macaan badan haddii aan wax kaaga sheegi kara waxaa ka mid ah afku qaayaweyna kolkii qorista loo yeelay farta qiimo badanaa kolkii dhoobka laga qaaday qalqaloo xuruuf aan lahayn qalamda loo diiday sadaqada qurxoon oo kolkii qalinka loo fiiqay 22 aamusta shaqal irmaanay amran iyo tilmaamo gudba aadi iyo jooga isku dara xiriiriye falgaab ereyadaniya abyanimo haddaan magacyada ku arka joornaalka mar haddii afkeygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaasiga ka baxay lagu agoontoobay abaar waxaa la nimankii fartan soo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen inna kuma aflaco hadal dad kale u akrinayaan aayaha dhulkeyga iyo dantaa lagu ilaabaay kuwii uurka kula jiibsadaa arag colowdaani haddaa dhaqanka la isaga ekayn laysma aaminay waa kale ajnabi 4 qof oo walaala hadduu ruuxoo beled aado mid walba akhlaaq gooniyo kala yimaadaay arrinna kuma heshiiyaane way kala ifloobaan ruwaa lama ilaabaan gabaygaasi yeetri runtii waxaas siriya gabaygaas abwaanadii macnaha Soomaaliyeed ee ayaga macnaha sameeyay luqadda qoritaanka afka Soomaaliga oo ay ka mid yihiin Xuseen Sheekh Axmed Kadare Abdullah Sultan Timcad iyo abwaan aad u fara badan hadda aan codno soo koobi karo waa tahay ugu dambeyntii wada aragtay xaaladda dalka meesha ay marayso dabcan waxaa jira isbedelo fara badan oo la doonayo in maaragtay dib loogu soo celiyo sharaftii iyo bulshadii karaamada iyo leedoo kale wax aad ka samayso gabay ah ama aad ka tirsan ma jiraan runtii horta fursad uma helin macnaha maadaama aan wada shaqaalanahay waddan qurbaan aan ku noolnahay runtii laakiin insha allah inaa aad iyo aad gabayaalo oo isbedelka ka socda Soomaaliya iyo xaalada ka socda oo ka cabiraan insha Allah taala inaan ugu sameeyo isku daya insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan dhawaan maaragtaa soo bandhigi doono hadduu rabbi awoodda la idmo ugu dambeyntii maxaad maaragtaa salaan ah oo aan bulshadaada u diraysaa maxaad maaragtaa fariin aad ugu diraysaa bulshadii yaa salaamaysaas adigu ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah oo maanta ku siinayo telefishinka qaranka Soomaaliya iyo radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii alxamdu rabbil caalamiin anigoo fursaddan qaaliga ee siisay macnaha idaacadda SNTV ka faa'iidaysanayo waxaan halkaa ka salaamayaa markuu horeysa aabba iyo hooyo ee degan magaalada Muqdisho xaaskeyda iyo xaasaskeyga iyo carruurtayda oo ayagana South Africa iyo Soomaaliya ku kala nool walaalahayga oo macnaha sidii Ingiriiska iyo Soomaaliya iyo Sacuudiga ku kala nool ayaa aad iyo aad macnaha salaam u diraya in Ilaahay anagoo subxaanahu wa tacaala isu kaa keeno anagoo nabad ah in Ilaahay dalka Soomaaliya nabad nooga duwo waxaa haddana halkan fariin uga diraya dowladda federaalka Soomaaliya in ay nabadda Soomaaliya iyo say waddanku horumari lahayn inay wax ka qabtaan waxaan kaloo macnaha inay halkan baa uga dirayaan fanaaniinta iyo abwaanada ku nool dalka iyo dibadda in ay sameeyaan gabi yacni bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto lagu dhiirigelinayo in waddanka dib loogu naqdo waayo in ay waddanka nabadgelyadiisa horumarinta dhaqaalaha ay ka qayb qaataan inay waddanka maalgeliyaan waayo waddan islaameed qofkii dhaqaalihiisa geliyo runtii shallaayaa u dambayso marka runta isu sheegin in qof walba oo waddankii dhaqaalo geliyo waayo ruuxi waxaa la yidhi 5 geel hadduu taga sakaa laga qalqaasha hadduu qaar hore ku yaa qiila lagu sheegay inuu qaybi dhig leeyahan waxaa qabtaa waayo dal qayli soo abdanta qiila lagu sheegay yacni qofka markii uu inta taga waddankiisa yihaa war adiga iyo aniga maxaa isku haysana waxaan isku haysana mar na kala daa dalkaana dagaal u marno runta wuu nabadooyaa laakiin Soomaaliya maxay nabad u naqawaysa
adoo qurbaan joogtadaan tira waddan islaameedna wax ku qabanayo wax oo dawlada oo shisheeye ee waddanka wax qabanaysa ma jirto waddanka aan ku noolnaana sharciga uuna siiyo waa ku meelgaar wax sharciga maaha adoo sharciga haysato aa maalin walba maxkamaddii lasla tago ayaa waxaa noqonaysaa qof foran oo macnaha inay waxba dembiga haddii ay sallay korka laga saara marka anigu waxaa aada iyo aada u jeclahay in waddanka lagu naqdo la maalgeliyo nabadgelyada laga qayb qaato waa kan waa tahay aad baad umahadsan tahay abwaan cabdullaahi nuur gacal abwaan wadani kobagacdheer barnaamijka toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka waxaa idiin tabinaya anigoo cabdullaahi maxamuud amiin cabdillaahi qorshe dhanka kaamirooyinka waxaa qayb weyn ka geystay ama gacan libaaxda ka qaatay kaamiramaan maxamed axmed siyaad geelle iyo weliba cabdikariin xeeri cabdulle cabdikariin habbi dhanka farsamadana wuxuu ahaa abshir cabdullaahi abshir israa'iil barnaamijkan waxaa marti noogu ah toddobaadkan abwaan cabdullaahi nuur gacal abwaan wadani ku magac dheer aad ayaad umahadsan tahay abwaan adaan mudan doona